dhegeystayaal meel kastoo aad ka joogtaan kusoo dhawaada wareysi gaar ah aan la yeelanayno wariye Liibaan Cabdisalaam oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed sida weyn looga yaqaan geyga Soomaalida sidoo kalena la shaqeeyay wariye jaamacadda Baraani oo isagu ah imika ku xiran magaalada Garowe ee xaruntu ah maamulka Puntland wariyaal badan oo dunida ku nool ayaa arkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay Liibaan kusugan waddanka Mareykanka ayaa qadka taleefanka ugu waramay warbaahinta Voice of Somalia. Liibaan marka hore kusoo dhawow idaacadda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aad baad u mahadsantahay Cabdul Ibrahim Garyare. Idaacadda Voice of Somalia iyo adiga iyo dhammaan howlwadeenada waa islaamaya waa dhawaay. Marka xigta sida aad la socoto Liibaan waxaa xabsiga loo taxaabay jaamacadda Baraani oo isagu ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ka howlgelayay muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Puntland. Sidee u aragtaa xariga loo geystay jaamac muxuu salka ku hayaa inta xogta aad hayso? waa su'aal aad u muhiim ah Cabdul Ibrahim Garyare. waxa weeye jaamacadda Baraani xarigiisu shakhsiyan waxaan ku tilmaami karaa xarig sharci darro ah oo aan oran karo wuxuu yimid waqti aan loo baahnayn sidana de 2015 baa lagu jiraa waqti saxaafad la caburiyo ama shakhsi dhibaato loo geysto waxaan u qabay in Puntland ka qaangaartay maamulka Puntland jaamacadda Baraani xarigiisa horta waxaa la qabaa warfidyada Soomaaliyeed oo arrintaas ay aad ka uga xumaadeen waana ka xumaay waana cambareeyay waxaana ku baaqayaa in jaamacadda Baraani xorriyadiisa la soo siiyo xaqiiqiisa marka waxa uu salka ku hayo wasaaraddu ma soo saarin qodobo cadeynaya waxa ay jaamac ku xireen waxa jirtay in asbuucii hore ay warqad u soo direen ay ku leeyihiin barnaamijyada waa in wasaaraddu ogaataa jaamac waa wariye madax bannaan telefishinka Somali Channel buu u shaqeeyaa waxa weeye ma qabanaya sharciga ah inuu wasaaradda hoos tago mana aha wariye ka tirsan wasaaradda marka adoo hadalku wataan ka dhaxjale warqadda ka soo baxday wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland waxa ay sheegaysay ay sharaysay in shaqadiisa si ku meel gaar ah loo hakiyo jaamacadda Baraani oo ka wada gudaha deegaanada Puntland marka kuma qornayn sida hadalka aad u dhigaysay imika barnaamijyada la soconayna waxa weeye Cabdul warqadda marka ay wasaaradda ka soo baxayso horta waa inay ahaataa warqad official ah oo waxa weeye wax walba ka dhameystiran jaamacadda Baraani sababaha maanta shaqo looga joojin karo ama wasaaraddu uga hakin karto waxa weeye in la cadeeyo weeye maaha shaqadii waa ka joojinay shakhsi shaqaysanaya hawl maalmeedkiisa wata xaaladda aad la socotid Cabdul Ibrahim Garyare oo adag oo Soomaaliya ka jirta shakhsi intuu bareeray raba inuu bulshada ka haqabtiro dadka iyo barnaamijyada waxa weeye wasaaraddu ha cadeysto sababaha ay shaqada uga joojinayso soo saarto Liibaan Baraani wariyahaas imika xiran waxa uu ka shaqeynayay deegaanadaas muddo badan mana jirin wax horey loogu soo eedeeyay maxay kula tahay inay ku soo beegayso xayiraadda iyo xariga ka dambeeyay lagula kacay kadib markii uu wareysi ka qaaday wasiirka warfaafinta Puntland Cabdul Ibrahim Garyare waad mahadsantahay waxaan ka mid ahaa warfidyadii gudaha Puntland ka soo shaqeeyay waqtiyadii Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto madaxweynaha ahaa hadda muuse waxaan ku sheegayaa in ay jirtay saaxiibtinimo ka dhaxaysa saxaafadda iyo Puntland oo soo jireen oo muddo badan jirtay waa nagu cusub tahay haddaan nahay warfidyada Puntland tacadiyada iyo caburinta iyaamahan soo baxaysa waxa weeye madaxweyne Cabdullaahi gaas markuu isu sharaxayay madaxtinimada Puntland waxaa ka mid ahaa hadaladiisii saxaafadda lama caburin doono waxaanan aaminsanahay intuu xilka hayay inay ahayd waqtigii ugu xumaa ay soo marto saxaafadda ama warfidyada Puntland ee gudaha ka howlgala in loo geysto dhibaatooyin tacadiyo marka maxaa cadeynaysaa oo aad u faahfaahinaysaa arrinta
waxaan ku cadeynaa heer waxa la gaaray wariyaal lagu sameeyo jirdil oo airportka magaalada Gaalkacyo ka dhacday oo kaamirooyinkooda laga kala turtuuray waxa dhacday in handadaad loo geysto waxa dhacday sida hadda aad u jeedid jaamacadda baraari ugu dambeeyay waraysi uu qaaday jiirku isaga waraysiga ogolaaday waxa weeye anigu maanta aan ogolaaday in waraysi laga qaado waa inaan diyaar u noqdaa wax walba oo la weydiinaa ka jawaaba haddii su'aasha aan dhibsanayo waa inaan jawaabkeeda jiidaa marka wasiirada ku samee oo dhegeyso waraysiga jaamacadda baraari iyo wasiir soo cadde shacbi baa tahay gareere waana ku soo dhex jirtay muddo badan haddii wax u dhimaya ama wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta Puntland toos umaysan cadaynin in waraysigaasi su'aalaha uu ku weydiinayay jaamacadda baraani wasiirka loo haysto ama loo xiray imaka laakiin waa tuhunada iyo wararka bulshada iyo warbaahinta u doodaysa xariga lagula kacay jaamacadda baraani ay iyagu sawaran karaan soo lama dhihi karo waa ra'yul caamka u qaadeenna dhinaca ra'yul caamka micnaha waxaan qiimeynayna maxaa ka dhaxayn kara wasaaradda warfaafinta iyo jaamac oo hadda soo kala dhex galay waa waraysigii ugu dambeeyey oo xoogaa la moodo inuu meelo badan qodxa ku lahaa marka haddii ay qodxahaasi wax kiciyeen ama ay qodxahaasi dhibeen wasiirka warfaafinta waxa weeye waa mid aan oran karno waa ka dambaysa xarigiisa marka hadde sida ra'yul caamka u fiirino laakiin wixii kale oo hoose dee taas waa arrin anagu aanan hayn cabdiweliow marka aad fiiriso wareysadii ka soo baxday wasiirka warfaafinta ee shaqada looga joojinayay jaamacadda baraani si ku meel gaar ah sida muuqato uma hoggaansamin oo waxa uu sii watay shaqadiisii isagoo warar iyo waraysiyaba ugu dambeeyay waraysi uu ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Raxmaan Awdawaa uu u dambeeyay soo lama dhihi karo amar diidada wareysadaasi sida doonta ku timaadee qayb bay ka qaadanaysaa inuu cirka isku sii shareero tallaabo inay wasaaradda warfaafinta ka qaado wariyahaasi imaka la xiray wasaaradda warfaafinta wareegtadeeda ma waxa ay shaqada uga soo telefishinka Somali Channel mise waxa ay shaqada uga soo jaamacadda baraani oo wariye ka tirsan TV-ga horta midda koowaad waa inta la fikiraa midda labaad wasaaraddu iyada waxa ay siisay laysinka ay ku hawlgalaan TV-yada madaxa bannaan mayna caddayn inay laysinkii ka ceshatay oo aysan TV-gaasi waxba ka warin karin gudaha Puntland digreetada marka soo baxday dee si cad oo faahfaahsan looguma oran jaamac shaqada iska jooji waxaa la yidhi waa in waraysiyadaada iyo dhaqdhaqaaqyadaada wasaaraddu wax ka ogaataa marka taasina maaha dee mid sharciga iyo qaanuunka xorriyatul qowlka maaragtay hoos imaanaysa waana sharaf dhac waxay ku tahay saxaafadda iyo shacabka Puntland sharaf dhac bay ku tahay in maalin walba weriye iyo wasiir ay haystaan xeer baa la soo saaray waxyaabay dowladdu soo qortay welina hawshu waa socotaa marka nacaybka shaksiga baan qaadanaa jiritaanka iyo nidaamka iyo warfidiyeenka iyo shaqadaas u socon lahayd baa laga hadlaa waxa weeye wasiirka warfaafintu marka runta ilaahay laga hadlo waa uu ku degdegay arrintaas waa inuu hadda soo daayaana arrintaas dabadeedna waa warfidiyeenada gudaha jooga iyo wasaaraddu shir isugu yimaadaan ay wax kala qortaan oo ay waxay ku wada shaqayn lahaayeen brises waxa soo noqon laga wada adigoo aad u mahadsan wasiirka warfaafinta laftigiisu waxa uu intuusan xilkan qaban ka hor ka mid ahaa wariyaasha ka hadla telefishinada afka Soomaaliya ku hadlo qaar ka mid ah maxay kula tahay inay ku riixayso muhiimadii uu shalay ku jiray raggii uu kula jiray qayb ka mid ah in uu sidan ay isagu ay uga cabanayaan inuu kula dhaqmayo waa su'aal muhiim ah oo meesha ku jirta isaga keliya ma aha waxaa dhacday silsilayaal badan oo idaacado iyo telefishinada lahaan jiray waxay ku biireen dowladaha ama federaalka ha ahaato ama maamulada ha ahaato kadibna waxay la soo baxaan weji ka duwan wejiga ay saxaafadda shalay iskula shaqayn jireen marka maaha wax soo cadda keliya taasi aan madaxa u saari karno laakiin hadda nin dhalinyaraha weeye nin warfaafinta wax ka og weeye waa nin yaqaana dhalinyaradan sida ay ku shaqayso iyo xaaladda adagoo dalku ku sugan yahay maanta annagu waxaan ka rabnay soo cadde
inuu garab istaago warfidiyaanka Puntland iyo warfidiyaanka Soomaaliyeed oo dhan si ay hawlahooda u gutaan maadaama uu yahay nin ku dhex jiray muddo badan saxaafadda waana arrin aad iyo aad looga xumaado in shakhsi kamid ah warbaahinta ama warbaahinta ku soo dhex jiray uu kula kaco tacaddi noocaasa warbaahintii xitaa waa meerto waa wareegto biri ka maalin waxaa laga yaabaa inuu qof kala yimaado soo caddana wariinimadiis ku noqdo marka biri marka soo cadda la xiro ama idaacadiisa ama telefishinka shaqada laga soo jiyo ka muslimna waa ka hadlaynaa sida aantan uga hadlayno marka waxaan ugu baaqayaa maxay kaloo ay culays ku keeni kartaa warfidiyeennada kale ee ka howlgala deegaanada Puntland marka aad fiiriso habka ay wasaaradda warfaafinta u wajahayso saxaafadda madaxa bannaan adigoo ka tusaale qaadanaya waxa imika taagan maxay falan karaan kuwa kalena والله سؤال مهم عبد الله إبراهيم قريرة أدب ما صرتاي واحد إيمان كرا أما سامنت أيلا كرتو حرج يلان أما حرج أنا دوّدن بيه واحد نقام كرا حرير كدولة إيه ورفيديان ككل أيه أوينا هذا وقلب قلب كلمات وحياة بدنا وبروباغندا وهذا حريان ورياته هو إيه يجي وديس في حولها بلادنا توك تسأله هنا مركز الشيء دايان شنو كرا إيمان كرتا على ود لحمرتا دولة iyo warfidiyaanka taasina waxay aakhirka sababi kartaa dhibaato iyo burbur waxa weeye in warbaahintu waxay adduunku yiraahdaan waa seed laba af leh in ay rabtaan wax u gooyaan laakiin liibaan saxaafadda laftigeeda mas'uuliyad kama saarna in ay ammaanka iyo jiritaanka maamulka meesha ka jira ay dhowraan si dadku ay ugu wada noolaadaan iyagoona eegaynin kaliya maamulka ama wasaaradda markaa xirtay waxaan leedahay haday wasaaradda warfaafinta wariyaasha xarig kula kacdo iyagoo waxa ay kari karaan bay sameynayaan hadday rabto foodaan noqoto waxa imaan kara waxaan ka hadlayna waxa imaan kara weeye mustaqbalka haddii ay kala dhintaan saxaafadda iyo dawladdu marka wariyaashu waxa weeye xaalad adag bay ku shaqeeyaan waxa weeye frontline bay war ka soo diraan ama ay joogaan waana og tahay xaaladda ay ku sugan yihiin wariyaasha gudaha Soomaaliya ka howlgala inkastoo anagu waqtigaan shaqeynayna waqtigaan adigu kala bedelaya wacyiga jira haddana saas oo ay tahay warfidiyaanka laftigiisu waa inuu wax badan xeeriya waxa weeye dalkan dhibaato ka soo kabanaya dagaalo sokeeya laga soo kabanaya horumar iyo waxa loo socdaa hadda in doodo iyo tasawiro iyo barnaamijyo laga doodayo marka waxay xaq u leeyihiin inay qaybtooda ka qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya taas waxa weeye kuma taageerayo in warfidiyaanku uu ka qayb qaato burburin waxa weeye inay dalkan dib u dhiskiisa ka qayb qaataan inay waxa weeye waxa ay u taagan yihiin ay tahay inay tahay awood kamid ah awoodaha dalka ka shaqeynaya oo loo baahan yahay inay qaybtoodii qaataan waxayna daa ku daro waad ogeed waagii dalka Kenya uu ka dhacayay dhibaatooyinku inaad joogtay baan filayaa garyara markaas Nairobi wariyaashoodu iyo telefishinadoodu go'aan bay qaateen waxay go'aan ku qaateen inay joojiyaan fidinta dhibaatooyinka ka dhaca marka ay ku dhimanayso boqolaal qof TV-yadii Kenya iyo idaacadihii waxay focus ka saarayeen wufuud ka soo degaysa airportka Jomo Kenyatta taasna waxay ahayd mid ay ku yareynayeen dhibaatada marka waxaan u sheegayaa adiga oo wata waxaan rabaa halkaa inaan kaa raaciyo warbaahinta waddanka Kenya xilligaasi 2007 waxa ay sameynayeen xaaladda adag si ay u dejiyaan in ay shaashadaha TV-yadana ku soo qortaan dalkaaga badbaadi idaacadahana sidoo kale fanaaniin badan ay ka soo qaadan jireen kaararna ay ku dhagsan jireen dhinacan xabadkooda si ay ugu muujiyaan bulshada in nabadda la raadiyo laakiin taa bedelkeeda Soomaalida uma muuqato wariyaashoodu marka sidoo kale wariye laga xiro meeshii ay dalka badbaadi iyo nabadiisa ka shaqeyn lahaayeen inay iyagu ku goodiyaan awoodda warbaahinada aan leenahay ayaan u isticmaali doonaa maamul hebel iyo mas'uul hebel garyara waxa weeye qodaxda ay qofka muddo waxa weeye waa la marmarayaa si looga soo saaro laakiin dib looguma sii celiyo waxaan taa ula jeedaa warbaahintu waxay leedahay awooddoodana ban iyo si caamama u soo bandhigi karaan xariga wariyaasha iyagoo u raacaya dhinaca fiican waxaan anigu qabaa inay kala hadlaan dawladda si sharciga waafaqsan ayna la fadhiistaan
laakiin horta inay ku goodiyaan inay qaybta ama dhibaato u keenayaan dawladda ama burbur ka qayb ka sameynayaan gudaha horta taas aad baan uga soo horjeedaa waxaan laakiin rabaa waxa weeye inay warfidiyaanka ama warbaahinta la ogaado awoodda ay leedahay maaha inuu wasiir walba kusoo degdego waxa weeye inay ismuujiyaan waa ay tahay laakiin waxa weeye inay isku muujiyaan dhinaca wanaagga ah isku xirnaantooda iyadana qayb bay ka tahay waxa weeye waxaad arkaysaa 250 urur oo mid walba urur sheeganayo maanta haddii wariye la xirana nin xafiis tegaya oo wasiir intuu la fariisto oranaya wasiir ama maxkamad aan isla tagno oo arrintan maxkamad aan geyno ama wariyaashan sababta lagu xirayo miiskan oo soo saar waxa weeye lama helayo marka inay muujiyaan awoodooda soona shacsaaraan oo fiican laakiin waa inuu maraan dhinaca wanaagga ugu dambeyn maxaad ku soo koobaysaa hadalkaaga oo aad u jeedinaysaa maamulka iyo weliba wariyaasha deegaanada ku sugan ee imika ku howlan soo deynta wariye jaamac Dabrani oo imika xorriyadiisa ay ka maqan tahay aad baad u mahadsan tahay garyare waxa weeye horta jaamac Dabrani inaan soo wada shaqeyno weeye shakhsi akhlaaq leh wadani ah dal jacayl ku jiro baan ku ogaa waxaan aaminsanahay dad badan oo hadda dawladda ku jira inuu jaamac ka wadanisan yahay kana dal jecel yahay aswaa qodob oo arrinta jaamac shakhsiyadiisa taa uga hadlaya midda kale wariyaasha waxaan ugu baaqayaa wariyaashu inay isku xirnaadaan kana qayb qaataan dibdhiska dalka iyo horumarkiisa in ay ka dhiidiyaan tacadiga iyo ariga iyo dhibaatooyinka lagula kacayo inay ka qayb qaataan meel walba ay joogaan hadda sidii loo soo dayn lahaa jaamac Dabrani ilaa iyo heer madaxweynaha ay la tiigsadaan arrintan taas waxaan oranayaa wariyaasha dawladda waxaan oranayaa waxa weeye Puntland dawlado badan baa soo maray waxa weeye aan ognahay qof walba xafiiskan time buu joogaa taariikhdu yaysan idiin gelin waqtiga aad joogtaan ama teramkiina waa waqti yar weeye yaysan idiin gelin taariikhda inaad noqotaan dawladdii ugu badneed ee caburin iyo tacaddi u geysata saxaafadda madaxa bannaan kana qabeeye qofkin qaadeen oo aad baarlamaanka iyo ummadda Puntland ka hor sheegteen oo ahaa inaad xorriyadooda u ogolaanaysaan saxaafadda madaxa bannaan taasna waxaan leeyahay dawladda si gaara waxaan ula hadlayaa wasiir soo cadde oo ah nin dhalinyaro ah oo aad u garanaya warfidiyaanka iyo hawshiisa soo caddow kamaana sugeyn maanta 2015 inaad wariye aad xirto ama saxaafadda aad cuburisid waxaan maanta kaaga fadhinay sidii aad horumar u gaarsiin lahayd saxaafadda Puntland sidii aad u dhisi lahayd jiilka soo socda kuwa soo kacaya tababaradooda macadyadooda sidii aad aqoon ugu raadin lahayd marka waa arrin aad u kala fog meesha aan kaa filaynay iyo meesha aad maanta taagan tahay aad ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Liibaan Cabdisalaan oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Mareykanka oo ka hadlayay xariga ay maamulka Puntland u geysteen wariye jaamac Dabrani oo ka howlgalayay telefishinka Somali Channel xarunta uu ku leeyahay magaalada Garowe aad ayaad u mahadsan tahay Liibaan waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa Cabdul Ibrahim Garyare